annagu waxaan u haysanaa ciyaalkeedii dhintay iyo kuwii dhaawacmay iyo kuwii la xidhxidhada xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo fulinta ah xukuumaddu waxa ay ku dhigatay tiri Ali Xaamud Jibriil oo fulinta xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland meel ka soo galin inay tiraado adiga mas'uulka ah kulanto waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena waxaynu diiradda aynu ku saari doonaa dadka ku nool deegaanada gobolka Awdal waxa ay maamulka Soomaaliland ay ka dalbanayaan in magdhow degdeg ah la siiyo maadaama dhalinyaro dhawaan lagu xasuuqay magaalada Boorame ee gobolka Awdal waxaynu eegi doonaa xaaladda iyo sidoo kale Soomaaliland tallaabooyinka ay qaaday ee la xiriira qaabka markaas loo wajahayo xaaladda gobolka Awdal xildhibaan maxamed abiib oo kamid ah golaha wakiilada maamulka Soomaaliland waxa uu ku dhawaaqay in Soomaaliland ay gabtay mas'uuliyadeedii sidoo kalena markaasi aqoonsiga Soomaaliland ay ku xiran tahay in dadka reer Boorame xuquuqdooda la siiyo sidoo hadalka u dhigay isagoona sidoo kale intaas ku daray in aanan markaasi waxba laga siinin xuquuqdii Soomaaliland haddaba maxaa ka jiray in gobolka Awdal xilligan ay ka soconayaan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo culeysyo xoogan lagu saarayo Soomaaliland waraysi iyo sidoo kale xog faahfaahsan oo arrintaas la xiriirta ayaad muuqaalkan aad ku daawan doontaan qodobada kale ee aad daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya wasiirka arrimaha gudaha maamulka Soomaaliland Cabdullaahi Sandere waxa uu kulamo kala duwan uu ka wada deegaano ka tirsan gobolka Salal ee maamulka Soomaaliland wada hadallo toos ayuuna sidoo kale uu la qaadanayaa beesha Ciise waxaana sidoo kale la isku mari laayahay qodobada qaarkood iyana sidoo kale waxaynu halkaas kaga soo gudbin doonaa xog faahfaahsan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee halkaas naga soo gaaraya marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 11 bisha koobaad ee Janaayo ee 2026 haddii aynu ku bilowno dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ayaa waxa ay ka soconayaan gobolka Awdal ee maamulka Soomaaliland xilli markaasi dadka deegaankaasi ay dalbanayaan in xuquuqdooda la siiyo iyadoona sidoo kale laba dhinac loo kala qaaday waxaa jira dhalinyaro ay dhawaan ay laayeen ciidamada maamulka Soomaaliland kuwaas oo qaarkood dhaawacyo daran qaba halka qaarka kalena markaasi ay u geeriyoodeen rasaastii ay ciidamada Soomaaliland ay ku fureen waxa ay soo taraya walaacaya sidoo kale baaqida kala duwan oo ay dadka deegaanadaasi ay markaasi ay dirayaan iyadoo sidoo kale u muuqato inay taafariintii ugu dambeysay haddii laga jawaabi waayana waxa suuragal ah oo macquul ah in dadkaasi ay markaasi tallaabooyin kale ay markaasi ay qaadaan musharax xildhibaan Suhayb Cusmaan oo markaasi kamid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka markaasi xildhibaanada golaha ayaana sidoo kale waxa uu markaasi uu ka hadlayaa dhibaatada ka jirta deegaanka isagoona sidoo kale intaas ku daray in la iska indhatirayo dhibtii markaasi loo geystay dhalinyaradan waxa uu sheegay in qaarkood aanan magdhow la siinin xildhibaanku waxa uu sidoo kale intaas uu ku daray in Soomaaliland ay markaasi ay gabtay mas'uuliyadii saarneed ayna sidoo kale kal horeba ay ahayd in ay iyada ay qaadato wixii halkaasi ka dhacay waxaan halkan shir jiraad ku qabanayaa xarunta magaalada Boorame oo ah xaruntii oo ka dhacay xasuuqii loo geystay dhalinyaradii waxa weeye mudaharaadaysa ama kacdoon ka waday magaalada Boorame si ay u difaacdaan xaqooda iyo sharafkooda iyo karaamadooda taas baan maanta aan rabaa inaan ka hadlo waxaan ku bilaabi doonaa taariikhdu markii ahayd horaantii markii bishii 12aad 2025 waxa magaalada Boorame ka dhacay xasuuq waxa weeye nuuciisa aan la garanayn oo loo geystay bulshada ku nool magaalada Boorame iyo gobolka Awdalba xasuuqaasi waxa geysatay dawladda Soomaaliland waxaana ku dhintay dad gaaraya ama dhalinyaro gaaraysa 20 qof oo daadoodu u dhaxayso 20 jir ilaa iyo 12 jir waxa kale oo ku dhaawacmay dhalinyaro gaaraysa 250 dhalinyaro oo daadoodu u dhaxayso waxa weeye 10 jir ilaa iyo 20 jir rag iyo dumar bale taas baan maanta aan rabnaa inaan ka hadalno dhalinyaradaasi intii dhimatay waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu naxariista janno ka waraabiyo intii ku dhaawacantayna Ilaahay boogadhayo laakiinse
qodobkan maanta halkan u fadhiya waxa weeye inaan faahfaahin ka bixiyo halkii uu ku dambeysay dhimashadii iyo dhaawicii loo geystay dhalinyaradaas. dhalinyarada saddex baa loo qeybiyey, in la laayay oo dhimatay, in la dhaawacay oo waxa weeye dhakhaatiirta iyo guryahooga taalla, iyo in la xidhxidhay. dhalinyarta magaalada Boorama intaas loo qeybiyey. saddexdaa qodob baan dul istaagi doonaa, mid walba qodob iyo laba ka dul istaagi doonaa. waxaan ku horeyn doonaa dhalinyartii dhimatay oo gaadhaysa 20 qof oo da'doodu u dhaxayso 13 jir, 11 jir ilaa iyo 20 jir oo rag iyo dumar bare. dhalinyarada dhimatay ilaa iyo maanta oo nila hadlayo lama hayo waxa weeye halkay ku dambeeyeen iyo in laga gaadhay xal waara oo waxa weeye dhalinyaradaasi ama waalidiintoodii ama ehelkoodii oo ku qanco. intii dhaawacantay oo qodobka maanta aan dul jooga ah, intii dhaawacantay baan doonaynaa inaan aad u dul istaagno. dhalinyaradii waxa weeye dawladdu ay leysay ay ku xasuuqday magaalada Boorama intoodii dhaawacnayd waxa weeye dawladda ayaa tiri annaga qaadanay, annaga mas'uuliyadda qaadnay wixii dhintay iyo wixii dhaawacmay. wixii dhintay waynu ka xisaabtami doonaa, wixii dhaawacmay waxa weeye waxa la geeyay dhakhaatiir ama dhakhtarro wadamada aynu jaarkanahay, waalidiintoodii baa raacay. si daro dhakhtarradii la geeyey ee wadamada aynu jaarkanahay Itoobiya ka mid tahay awood bay u yeelan waayeen inay maanta dhalinyaradaasi ay kafaalad qaadaan ama ay daweeyaan ama ay ku guuleystaan caafimaadkooda. markii ay waalidiintii idhaahdeen waa niyahow dhakhaatiirtan ama dhakhtarradan kamaanaan helin adeegii aan u baahnayn ama sidii aan rabnay ugamaanaan helin, dawladdu waxay ugu jawaabtay ama guryihiinii taga ama waxa weeye jooga. taasna nagama qabato, waa dil labaad iyo dil saddexaad. waxa weeye waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland uu garwadeen ka yahay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, ciyaalka iniga laayay mas'uuliyadooda iniga ale, cid kale oo maxay mas'uuliyadda ma jirto. waxa kale oo wax lala yaabo ah waxa weeye ciyaalka dawladda laysay, xukuumadda laysay iyada mas'uuliyaddeedii qaaday. waxa weeye haddii xukuumadda ay mas'uuliyadda qaaday, cidda mandate-ka u leh ama mas'uuliyaddeedaas kale waa wasaaradda caafimaadka oo tiri annaga kafaalad qaadan. laakiinse ma ahayn oo nama qabato in la yidhaahdo nin aan meel ka soo gelin xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland la yidhaahdo adaa mas-uulka arrintaasi adiga ka shaqaynaya, adiga waxa weeye dawladda iyo dadka u dhaxanaya. nama qabato. annagu waxaan u haysanaa ciyaalkeedii dhintay iyo kuwii dhaawacmay iyo kuwii la xidhxidhada xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland oo fulinta ah. laakiin waxa weeye balaayaafka lagama dhowree xukuumaddu waxa ay ku dhigatay tiri Ali Xaamid Jibriil oo fulinta xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland meel ka soo gelin inay tiraado adiga mas'uulka ah, isna uu waalidiintii iyo dhalinyaradii maalin kasta hanjabaad iyo goodi iyo been isku daray. taasi waxaan leenahay nama qabato. baaqayga u dambeeya waxaan halkan uga dirayaa odayada dhaqanka ee Gadabuursi. waxaan leeyahay dadkan inigaa u odaya, inigaa mas-uulka ah. maalinkii waxa weeye hawshu dhacday waa tii xukuumadda ama dawladdu ka baxday gobolka. dhalinyaradii oo waxa weeye haysata istabaha galbeed iyo bariba iyo koonfurba waxa weeye ciday aqbaleen ay ixtiraameen ay maamuuseen waa koofiyadiina waana iniga. waxa weeye maanta cidda aan waxa weeye mas-uuliyadda ka doonaynaa waxa weeye waa iniga, waa dhaqanka beelaha Gadabuursi. daawan mayno xukuumad ku dheeldheelaysa dhiiggii dhalinyaradeeda iyo caruurteeda
ay ugu geysteen xasuuq ba'an magaalada Boorama ma daawanayno oo ma daawanayno waxaan ku soo koobayaa tix gaaban oo odhanaysa dadku ma aha kii shalay cadde midhaha darayga ah duuduub ku luqi jiray dadku ma aha kii shalay iyaga la isku diri jiray ee la kala dabari jiray dadku ma aha kii shalay dadku ma aha kii shalay dacatiga warmooduhu reer hebel ku diri jiray ee diida oran jirin maanta waxaan leenahay diida baan leenahay waxaan ugu dambeyntii ugu baaqayaa saxaafadda gobolka Awdal inay kor u qaadaan wax weeye dadka aan codkooda meel dheer una gaadhayn ee dhibaatada inta loo geystay ee hooyooyin kale ee wax weeye waalidka kale leh ee dhalinyarada leh inay kor u qaadaan oo xaqooda meel walba oo marinayno aynu wax weeye mid walba u kaalintiisa qaato dhinaca kalena xildhibaan maxamed abiib oo ka mid ah golaha wakiilada maamulka Somaliland ayaa isagana waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka Awdal waxa uu sheegay in aqoonsiga guud ee Somaliland ee wadamada caalamka uu ku xiran yahay in Somaliland ay markaas xuquuqdooda ay siiso reer Boorame sidoo kalena Somaliland ay aqoonsato reer Awdal sida uu sheegay waxa uu sheegay in Somaliland ay markaas ku dulman yihiin dadka ku nool gobolka Awdal isagoona intaas ku daray in mas'uuliyiinta ay xilalka ugu sareeya ka ay Somaliland in aanan markaas la siinin waxaana intaas uu ku daray in wasiirada muhiimka ah aynan markaas helin dadka ku nool gobolka Awdal sida uu markaas uu sheegay waxa intaas uu ku daray in ugu horeyn markaas dawladdu ay tahay in qaladaadkeeda ay saxdo si markaas wax badan ay ugu barato arrimaha jira isagoona intaas ku daray hadii aysan Somaliland aysan tallaabadaas aynan qaadin in aysan dunida aqoonsi aysan ka helaynin mar uu kala sii horeysay markaas uu wareysi u bixinayay xildhibaan maxamed abiib oo ka mid ah golaha wakiilada maamulka Somaliland xildhibaanka waxa uu dhowr jeer oo kala duwan uu ku celceliyay in beeshiisa markaas xuquuqdii ay lahayd aynan markaas Somaliland aynan siinin sidoo kalena markaas looga baahan yahay in ay siiso haddaba sidee u aragtaa hadalka ka soo yeeray xildhibaan maxamed abiib oo ka mid ah golaha wakiilada maamulka Somaliland aragtidaada nala wadaag markan haddii aynu eegno gobolka Sanaag wada hadallo u dhaxeeyo odayaasha dhaqanka beesha Ciise iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Somaliland Cabdullaahi Sandheere ayaa waxa ay ka soconayaan qaybo ka mid ah gobolka Sanaag Cabdullaahi Sandheere waxa uu gabi ahaanba uu doonayaa in beesha Ciise hubka dhigis uu ku sameeyo inkastoo iyana markaas beeshan ay diidan tahay in hubka markaas ay dhigto iyadoona sidoo kale shaacisay inay jiraan maleeshiyaad kale oo iyagana markaas hubka haysto ugu horeyn haddii markaas hubka dhigis la sameynayo waxa ay shaaciyeen in looga baahan yahay Somaliland in maleeshiyaadka kale iyagana markaas hubka haysto iyo beelaha kaleba in ay tahay in hubka dhigis lagu sameeyo kadibna iyaga lala hadlo sidii markaas ay sheegeen waxay shaaciyeen haddii aynan markaas taasi aynan dhicin in aysan suuragal lahayn oo aynan marnaba macquul lahayn in ay iyagana ay hubka ay dhigaan waxaana intaas ay ku dareen in Somaliland ay tahay in ay dib isugu laabato ugu horeyn oo ay qaladaadkeeda saxdo kadibna markaas beesha Ciise iyada la weydiiyo beesha Ciise waxa ay markaas ay ku doodaysaa in bandhigii buuga xeer Ciise lagu la dhagay taasoo ay sheegeen in ay tahay dhaqan soo jireenna oo ay hore u dhigan jireen Somaliland in ay haatan ay ka diido ay taasi ay keeni karto in markaas bulshada markaas la sii kala fogeynayo sida ay hadalka u dhigeen odayaasha dhaqanka beesha Ciise laakiin wasiirka arrimaha gudaha maamulka Somaliland waxa uu markaas uu shaaciyay in uu beesha Ciise iyo isagaba ay markaas isgaranayaan taas oo markaas muujinaysa fariin ah in ay yihiin dad markaas wada dagaalami kara ama sidoo kale wada heshii kara sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha maamulka Somaliland Cabdullaahi Sandheere wali kulamadii waa ay soconayaan xaaladda deegaankaasi waxay sidoo kale u muuqanaysaa in dooda adag ay markaas isweydaarsanayaan odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale maamulka Somaliland haddaba wada hadalladaasi aragtidaada nala wadaag